caawa waxaan halkan ku soo bandhigaynaa eedeysanayaasha horteenna fadhisa oo saddexda ah oo aad u jeedaan oo meesha ay fadhiyaan. waxaan marka hore rabnaa inaan u mahad celinno allah subxaanahu wa tacaalaa noo suurtogeliyey, na ajiibsiiyey, noo awooday inaan qabanno eedeysanayaasha horteenna fadhiya. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlgalkii socday 26 saac, bilowday shalay 8 saac iyo bar, soona gabagaboobay galabta 10 saac iyo bar. muddada intaas la eg waxaa socday howlgal dhammaan ummadda deegaankan joogta, deegaanadan ku nool ay iska kaashadeen howlgalka noocaasa. saraakiil, askar, dhammaan dadka deegaankan jooga waxaan leeyahay shukri cali waajib, waa ku mahadsantihiin si aad noo gacan siiseen, si aad noo garab istaagteen. waxaan kaloo u mahad celinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay howlgalkaas, ugu horeeya taliyaha madaxtooyada xidig iyo saraakiisha kale oo dhinacyadeenna taagan, maamullada degmooyinka baxda iyo qaayib, cadakibir ilaa cadaado, odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan ee deegaankaas. runtii ma suurto gasheen, macquulna ma noqoteen in gacanta lagu dhigo eedeysanayaasha horteenna fadhiya haddii aysan ayagu aysan hor kacayn, haddii aysan garabkeenna aysan taagnayn. dhul isku weer 400 kilomitir ka badan ayay nagula meeraysanayeen saacadihii intaas la eg. hal saac oo ka mid a ama hal daqiiqo oo ka mid a oo la istaaga ma jirto, ayaguna istaagan annaguna istaagin. howlgalkaas dhammaan ay ummaddaas ay ka qayb qaateen waa ugu hambalyaynaynaa, waa ugu mahad celinaynaa. waxaan si gooniya uga mahad celaynaynaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor oo aan saacad ama daqiiqad intii howlgalkaas socday isaguna aan ka maqnayn. runtii nagu dhiirigeliyey, na garab taagnaay, wax alla wixii tasiiradan u baahnayn nala daba taagnaa. waxaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen marasta ahaay, bermigedada ahaay, lagu laayey si xaqdarro ah loo laayey. waxaan rabnaa dhammaan anoo ku hadlaya magaca galmudug inaan ka tacsiyeyno. waad dareemi kartiin dadka halkaas fadhiya ood u jeeddaan inaan gabdhana laga dilin, hooyana laga dilin, odayna laga dilin, laakiin ay tahay shirqoo la soo maleegay oo lagu subcadilayo deegaanka galmudug. barnaamijkaas rag wejiga soo duubtaya ka shaqeeyey. waxaa rabaa galmudug in la sula xumeeyo. waxaa la yidhaha in abnimo jiro la yidhaahdo. awal waxaa la isku dili jiray dadka rijaasha ah, dadka xoolo dhaqatada ah, dadka deriskaa la isku dili jiray oo laga faa'iidaysan jiray. laakiin hadda mashruuc weyn oo foolxumo ah oo aysan kuwaana fahmi karin, meesha horteenna fadhiya aysan fahmi karin, ayaa lagu soo dhex tuuray lagu laayey hooyo iyo carruurteed. waxaan rabnaa dadkaas ay ka dhinteen oo la xasuuqay horteennii fadhiyaan dadkiina dilay. ciddii u dirta ayagaa sheegi doona, baaristaa bilaaban doona, sharcigaa la horgeedi doonaa. waxaan ka codsanaynaa inaad ku qanacdaan, sharciga inaad ku qanacdaan ka codsanaynaa, oo aysan dhicin in fal kii oo kale ah lagu jawaabo. waxaan rabnaa bulshada deegaankan joogta ayagana rabnaa in u digno. waxaan ognahay mararka qaarkood in la qariyo dadka dembiilayaasha ah, dadka gacan ku dhiglayaasha ah, ayadoo la leeyahay
reer hebel hore u dilay ama nin dilay waxaan rabnaa in gacan la siiyo hay-adaha amniga si u suurto gasho in aan nin dembiilaha uusan ku dhuuman deegaanka sida aad uga damqateen sida aad u garab istaagteen ciidanka ma suurtoodeen haddii adinku aadnaan garab istaagin in shaqo la qabto ma aydin suurtoodeen walow tan falkan uu yahay fal wuxuusnimo ah oo qof kasta oo bini aadama uu maaragtay ka xumaaday oan ahayn weliba inta galmudug kale joogtee qof kasta oo soomaaliya uu ka xumaaday haddana dilku waxba isma dooriyo waa un sii kala foolxun yahay oo can yaroo saqiira iyo hooyo iyo gabar iyo nin shayba iyo nin culamaa in la dilo waxay ka foolxun u baahan tahay nin qawiyo xoogla in la dilo laakiin dilka oo la dilaayo ilaahay xaggiis dalkoo isaga mid waayo runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha hortiina taagan maamulada degmooyinka dhammaantood min Cadaado ilaa iyo Qaayib inta ka dhaxaysa iyo bulshadooda waalidiinta dhammaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gooniyana mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celi doonaa madaxweynaha galmudug runtii oo isaguna shaqadan 99% qabtaan u mahad celinaynaa ana mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu